waxaan diyaar u nahay saddex furan hufnaan leh mas'uuliyad leh inaan ula shaqeyno hay'adaha iyo NGO-yada ay soo dirsanayaan ma soo ogolin in intay yimaadaan ay dadka shirsadaan waxay rabaan u sheegaan waxaasan inii keenayna ay yiraahdo konfliktiga ka timaada dadka isaga kaya dhacaya dhibaato weeye markay tuulana la yiraahdo meel hore ama hay'ad hore joogtaan u diray intay dul yimaadaan inay mid kala dul saaraan mid agteedaana bannaan tahay wax suurtagalaya ma leh annaga hay'ada waxaanu nahay degmaduna waxay ka amar qaadataa gobolkuna wuxuu ka amar qaadataa wasaaraduna hadee madaxtooyada bay ku xiran tahay systemka dawliga ah baan rabnaa inaan ku shaqeyno hay'aduhu inay nagula shaqeeyaan waxaan hadda uga degahayaa safe children nimanka la yiraahdo hadda ka hor waxaan u imid degmada kaarar hal sano iyo 2 sano ka hor ay keeneen oo yaal oo yiraahdo waxbaan inii keenaynaa dad miinis waxba ma ay keenin hay'adahana waxay ku tala galeen meeshaas annaga ku jira oo ka shaqeynayna isbaara inay ka dhigtaan waxa la yaabahayd waxaan ugu imid xafiiska kaar ay keeneen oo ay ku qoran tahay gobolka Nugaal degmada Ayl in ay tuulooyinka kamid ah oo taqriiban 30 kilomitir u jirta la keenay oo ay u xareysan tahay raashin baan ku keenaynaa maamulka hay'aduhu ay ku shaqeynayaan iyo systemka ay u shaqeynayaan waxa nagala kulay waxaasay ahaayeen waxaanu aragnay dad iska ordahaya waabaan ka shaqeyn jiray waa hadii laga shaqeyn jiray oo gaam dhacay wixii dib intii la isugu yimaado dadkan waa guuraa tuuladii shalay intii joogtay ma joogto maanta in kala joogta boqolkood jeer baar bay imaan karaa intii joogtay baa wax yar ka harta dadka waxaanu anagu mas'uuliyad u nahay oo balance dadkaas inaan mid walba meesha iyo miisaanka ay leedahay wax u qaybino ma doonayna anagu inaanu niraana waxaad wataan nasiiyo oo anaga qaybinayna laakiin waxaan ku leenahay tilmaan waxaan hadda si toos uga hadlahayaa ilaa 6 deegaan bay hadda waxa ku jirta safe children waxaan maqlaynaa kaarar bay bixinayaan waxaan maqlaynaa xirfooyin hal qoday leeyihiin wax xiriira kama lihin waxaan saacada laga bilaabo amar ku siinayna inay si degdeg ah uga baxaan degmada jariiman xuduudkeeda inay ka baxaan gobolka haday tagayaan gobolku inuu galo haday tagayaan Nugaal wasaaradda arrimaha gudaha waxaan annaga intaasna soo marin fawdadaas una dul qaadan mayno haday isku sii joogaan talaabo dawli ah baan ka qaadaynaa waxaan mar labaad uga degahayaa oo mar saddexaad uga degahayaa inaanu wada shaqeynta annaga dalka asbaara ka u dhigan mayno waxaan nahay maamul wanaag baan rabnaa inaan ku shaqeyno waxaan rabnaa maamul daadjin inaan ku shaqeyno waxaan rabnaa system dawli ah oo degmada iyo gobolka iyo wasaaradda ay isku xiran yihiin inaan ku shaqeyno systemkii aan arki jiray oo lagu shaqeyn jiray midaan ka digidsan baan aragnay waxaad garan ka dhaan nimanka intay yimaadeen oo intaas ilaa 6 tuulo 8 deegaan marahaya oo degmada xiriir la lahayn oo guddi ka qoranahaya oo le waxba ayna siinayna oo kaararsiinahaya oo kuwii sanadkii hore 1917 ay yaaliin inay tahay isbaara ay u xiranayaan dalka annaga halka ka shaqeynayaan la ka soo galin ina isbaaradaasna ay saas tahay waxaan codsanayaa mas'uuliyiinta warkaan maqlaysa inay tixgelin gaar ah siiyaan gobolka waa u sheegay wasaaradda arrimaha gudaha waa gaarsiiyay hay'aduhuna waxaan jecelahay inay hadaala ku cidii af Soomaali baan ku wada hadlaynaa af Soomaaliga taqaan isku xadgudbin maynayaan isku xadgudbin